السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan duubaynaa videogeenii ugu horreeyey oo aanu trade soo dhigno youtube-ka. haddaad youtube-ka nagala socoto waxaanu filaynaa aadna ka hesho waxaanu sharaxno inaad taageeri doonto, saaxiibadaana aad u sheegi doonto inay inagu taageeraan youtube-keenna oo ay subscribe-ka noo sameeyaan. waxaan soo dhigaynaa coinkan loo yaqaano step up. ka hadlayna maanta waxaanu qiyaasaynaa inuu gaari karo ilaa 126% return muddo gaaban gudaheed uu kuugu keeni karo. soo qofkii lacag fiican gashta halkaas waxaa laga yaabaa muddo bil gudaheeda inuu lacagtiisii laba laab u noqoto. waana return aad u fiican. taageeridiina baan wax ku nahay. please youtube-ka subscribe noogu sameeya, waa idinka codsanaynaa. marka haddaanu eegno suuqan aan lower time frame tagno, waxaan arkaynaa suuqu inuu daadashadii joojiyey oo u noqday halkan uu kala wareeg ka sameeyey. meeshan waxaa ka dhacay wax loo yaqaano xodxodasho, kadibna suuqa waa lagu soo geliyey, iyadoo mararka qaar dhacdo in inta lagu xodxoto hoos lagugu soo rido. laakiin markan wixii lagu ballan qaaday waa lagu siiyey oo suuqu waa uu ka abaalmariyey. kadibna waa la soo celiyey si dadka cabsaday ay uga cararaan. kadibna suuqa waa uu kacay, haddana wuxuu ku jiraa meesha ranging-ka ah. soo haddaanu tagno 1 hour-ka, halkan waxaa ku qoran no financial advice. saddexdan TB in la gaaro waxay ku xiran tahay contingence upon the health of the crypto market. waxay ku xiran tahay caafimaadka suuqa. hadduu suuqu jirado waxaan lama gaari karo. macnaheedan waxa weeye bitcoin oo bullish noqota. haddaysan bitcoin kicin suuqu numbaradan waxay ku xiran tahay caafimaadka suuqa. waxaanoo dhan waa haddii suuqa caafimaad qabo bitcoin ay kacdo. haddii bitcoin ay kacdo weyaan waa coin aad u fiican. waxaan kaloo rabaa inaan ku eegno Fibonacci retracement. so haddaan Fibonacci retracement ku eegno suuqa waxaanu arkaynaa in marka uu marayay 0.5-ka markuu suuqa marayay in suuqa laga soo celiya halkaas 0.5-ka. oo macnaheedu yahay suuqa markan laga bilaabo dadka xodxodashadii waa ay dhammaatay. marka ninkii kusii jiraya ninkii kale isagay jirtaa, soo liquidity bay aruurinayaan. so think waxay keenayaan hadda waa ranjigaasoo ku jiraa. waxaa suurtagala oo biyo kama dhibcaan aan dhihi karnaa in hataa halkaas ay ku soo celiyaan. laakiin waxay u badan tahay inay meelahan ka celiyaan meesha 50%. so worst case scenario meelahaas, kadibna suuqa ay qaadaan oo aad tiibboygaagii koowaad kuugu dhaco 47. kaas markaa ka baxda tiibbigaada koowaad soo yar celinayaan suuqa, halkanay keenayaan. kadibna in halkaas inay ka baxaan, haddana retestal ay kusoo sameeyaan halkaas linekaas. kadibna ay ku geeyaan halkaas oo ah TB-geeda labaad.
and then waxyar soo noqdo kadibna tb-gaaga saddexaad ilaa halkaas waa suurtagal laakiin goolkeenna waa saddexdaas tb saddex tb ka badan marna inaan sheegno laakiin halkaa ilaa iyo tb afaraad halkaa waa la oran karaa suuq inuu gaaro ah and then dhaqaaqii kale aan halkaas kasii qiyaasno waa video gaaban waana coinka si sharaf leh idinku sharaxnay haddii aad ka heshay videoga please like noo taabo coinkaasna haddii aad haysato geed ayo ka iibso meelo badan buu yaallaa kucoin baa ka helaysaa bitmart baa ka helaysaa iyo meelo badan coin xiisa leh waana waxa waktiga iminkan kribtada iminka jira weye so waa inaan fahnaa kribtadu inay leedahay cyclical macnaha wakti wareega waktigaasayna ku jirtaa marka youtube channelkeena waa kan fadlan la soo xiriira halkaa nagala xiriira so halkaa soo koobi marka fur koobi garayso kadibna ku dhegso youtube-ka subscribe-ka noo taabo thumbs up-kana na sii waana ka mahadnaqaynaa taageeradiina aad iyo aad baa uga mahadnaqaynaa kaas waa tb-ga saddexdaas meelood wey 63 ama 63 59 almost 60 tb-ga labaad tb-ga kowaadna 47 cents taasoo kaa caawin doonta in jeebkaada kordho adiguna aad taageeradana siiso saaxiibadaana aad taageerada nooga soo qaadid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu youtube-keenina waa kaas halkaa qoracdiisaan waxyaalahan faraha badan idinka qaadaynaa maaska yaalaan sidoo asalaamu calaykum